kulanti wacan meel walbo aad joogtaan. ciidamada Israel ayaa weeraro dhinaca cirka ah oo duqeymo ah waxa ay ka wadaan xaafadaha dhinaca koonfureed ee magaalada Beirut. Wararkii ugu dambeeyay ee iska horimaadyadaas iyo Xisbullah oo sheegtay in gantaalaheeda ay ka gudbayaan Lubnaan gudahana u galayaan Israel ayaan idin hayaa. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee Gaza oo saaka waa barigii ciidamada Israa'iiliyiintu ay ku dileen 19 qof meel masjid ah oo dad barakacayaal ah ay gabaad ka dhiganayeen. iyo isku dhaca hor leh oo u dhaxeeya madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu. duqeymo ay Israel ku qaaday masjid ku yaala marinka Gaza aroornimadii hore ee Axadda maanta waxaa ku dhintay ugu yaraan 19 qof sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta, iyadoo dhinaca kalena Israel ay xoojisay duqeymaha ay ka geysanayso waqooyiga Gaza iyo koonfurta Beirut oo dagaalo ballaaran ay kula jirto kooxda Xisbullah ee Iran ay taageerto. dadka barakacayaasha ayaa gabaad ahaan u deganaa masaajidka lagu weeraray oo ku yaala agagaarka isbitaalka weyn ee magaalada Darul Balax ee bartamaha Gaza. 4 qof oo kale ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday iskuul ay gabaad ka dhiganayeen dad barakacayaal ah oo ku dhow magaalada. militariga Israel ayaa ku andacooday in labada weerarba ay la beegsanayeen mintadiin, hase yeeshee wax caddayn ah looma hayo sheegashadaas. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegay in uu arkay meydadka yaala qolka cisbitaalka Al-Aqsa. xogta laga helay cisbitaalka ayaa muujinaysa in dadka ku dhintay masjidka ay dhammaantoodba ahaayeen rag. Israel ayaa weli dagaal waxa ay kula jirtaa Xamaas sanad kadib markii ay kooxda Xamaas weerar ku qaaday Israel waxa ay sidoo kale xilligan ku furmay dagaal kale oo kala dhaxeeya Xisbullah. dagaalo xoogaga Xisbullah ayaa ka gudbaya dhinaca xuduudaha. Israel ayaa sidoo kale wacad ku martay in ay Iran lafteeda weerari doonto xilliga ay go'aansan doonto kadib markii Tehran ay weerar dhinaca gantaalaha ah ku qaaday Israel isbuucii la soo dhaafay. xiisadda sii xoogaysanaysa waxaa Mareykanku u arkaa khatar hor leh, waxaana uu taageero militari iyo mid diblomaasiyadeedba u fidinaya Israel. sidoo kale dalalka carabta ee xulfada la Mareykanka oo martigeliyay ciidamada Mareykanka ayaa laftooda uu saameyn doonaa dagaalka sida la sheegay. kooxaha hubaysan ee xulfada la Iran ee ka dagaalamaya Syria, Ciraaq iyo Yemen ayaa iyagu horay ugu biiray duqeymaha meelaha ay Israel lagu qaadayo. militariga Israel ayaa dhinaca kale ku dhawaaqay weerar cusub oo dhinaca cirka iyo dhulka ah oo ay ku qaadeen deegaanka Jabaliyah ee waqooyiga Gaza, halkaas oo ay ku yaalaan xero qaxooti oo aad loo degan yahay oo soo taxnayd tan iyo dagaalkii 1948. ciidamada Israel ayaa isku gadaamay Jabaliyah iyadoo diyaaradaha dagaalka ay duqeeyeen goobaha ay dagaalyahanada ku sugnaayeen, sida uu sheegay militariga. intii uu socday dagaalka, Israel waxa ay halkaasi ku fulisay dhowr howlgal oo waaweyn. Israel waxa ay halkaasi ka fulisay dhowr howlgal oo waaweyn, waxaana ay la kulantay iska caabin xoogan. Israel waxa ay ku celisay baaqeedii ahaa in si buuxda loo daadgureeyo dadka waqooyiga Gaza. ilaa 300,000 oo qof ayaa lagu qiyaasaa in ay ku hareen waqooyiga sida aadka ah u burburay kadib digniino hore oo Israel ay soo saartay oo ay u dirtay ku dhowaad 1 milyan oo qof oo u qaxay dhinaca koonfurta. waxaan ku jirnaa weji cusub oo dagaalka ayay ciidamadu ku sheegeen waraaqo lagu daadiyay aagga. meelahaasna waxaa loo arkaa ayay tiri goobo dagaal oo khatar ah. dadka deegaanka ayaa baraha bulshada soo dhigayay qoraal ku saabsan duqeyn halkaasi ka dhacday, waxaana ay tacsi u direen eheladooda. nin lagu magacaabo Imad Al-Arabid ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in weerar dhinaca cirka ah
oo lagu qaaday gurigiisa oo ku yaala magaalada Jabaliya ay ku dileen 10 qoys oo ay ku jiraan waalidkiisii. Saciid Abu Elesh oo ka mid ah dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka ayaa isna sheegay in uu dhaawac soo gaaray oo uu dhiig baxay. Saxafiyiinta deegaanka ayaa sheegaya in mid ka mid ah asxaabtooda oo lagu magacaabi jiray Xasan Xaamud uu ku dhintay madaafiicda. Weeraradii ugu dambeeyay ayaa sii kordhinaya tirada dhimashada Falastiiniyiinta ee Gaza, taas oo ku dhow 42,000 oo qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Wasaaraddu ma kala saarin dhimashada dadka rayidka ah iyo dagaalyahanada, laakiin qaar badan oo ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa haween iyo carruur. Dhinaca Beirut haddii aynu eegnana, ciidamada Israa'iil ayaa weeraro dhinaca cirka ah waxa ay ka wadaan magaalooyinka ama deegaanada koonfureed ee magaalada Beirut, iyagoo sheegay in ay bartilmaameedsanayaan dagaalyahanada Xisbullah. Weeraradan ayaa lagu soo waramayaa in lala beegsaday dhismo ku dhow waddo aadda garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kaaliya ee Lubnaan iyo goob kale oo ay horey u isticmaali jirtay warbaahinta ay maamusho Xisbullah ee Al-Manar. Militariga Israa'iil ayaa xaqiijiyay in ay duqeymo ka fuliyeen meel u dhow Beirut, waxaana ay sheegeen in ilaa 30 gantaal ay ka soo gudbeen Lubnaan iyaga oo gudaha u galay dhulka Israa'iil, qaarkoodna la qabtay. Xisbullah ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay weerar ay ku bartilmaameedsatay koox ka tirsan askarta Israa'iil ee ku sugan waqooyiga Israa'iil. Xisbullah oo ay Iiraan taageerta ayaa sii wada weerarada gantaalaha ah ee lala beegsanaya Israa'iil wixii ka dambeeyay weerarkii Xamaas ee Oktoobar 7. Weeraradan ayaa muujinaya taageerada Xisbullah ay siinayso dadka Falastiiniyiinta. Xisbullah iyo militariga Israa'iil ayaa isweydaarsanaya hubka iyo rasaasta maalin walbaba. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay, Israa'iil waxa ay ku sheegtay howlgal dhulka ah oo xadidan in ay ku qaaday koonfurta Lubnaan kadib markii weeraro isdaba joog ah lagu dilay hogaamiyihii muddada dheer ee Xisbullah Xasan Nasrallah iyo inta badan taliyayaashiisii ugu sarreeyay. Dagaalkan ayaa ah kii ugu xumaa tan iyo markii Israa'iil iyo Xisbullah ay galeen dagaal socday muddo bil ah sanadii 2006. 9 askari oo Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay iska hor imaad dhulka ah oo ay Israa'iil sheegtay in ay ku dishay, iyana dhinaceeda 440 dagaalyahan oo ka tirsan Xisbullah. Lama xaqiijin karo wararka ka soo baxaya goobaha dagaalka ee labada dhinacba. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhaleeceeyay go'aankii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku sheegay in uu ciidamo u dirayo howlgallada dhulka ee Lubnaan, isla markaana uu weeraro ku qaado dalkaasi. Waxa uu sidoo kale ku baaqay in la joojiyo hubka la geeyo Israa'iil si loogu isticmaalo dagaalka Gaza. Madaxweynaha dalka Faransiiska waxa uu yiri, waxaan filayaa in maanta muhiimaddu ay tahay in aan ku laabanno xal siyaasadeed. Waa inaan joojino hubka aan kula dagaalayna Gaza. Faransiisku ma bixinayo wax hub ah. Waxaan ka xumahay in ra'iisul wasaare Netanyahu uu sameeyay dooq kale, gaar ahaan howlgallada dhulka ee Lubnaan. Lubnaan ma noqon karto Gazada cusub. Macron ayaa ku yiri waraysi uu siiyey mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dalkiisa. Waxa uu sidoo kale ku celceliyay walaaciisa ku aadan colaadda Gaza oo sii socota, inkasta oo ay marar badan ku baaqeen xabad joojintaas. Waxay ila tahay, ayuu yiri, inaan nala maqlin. Waxaan u malaynayaa inay khalad tahay oo ay ku jirto amniga Israa'iil. Dagaalku wuxuu horseedayaa oo keliya nacayb. Hadalka Emmanuel Macron waxaa ka cadhooday Netanyahu oo sheegay in ay ceeb tahay in Macron uu ku baaqayo cunuqabateyn hubka ah oo ka dhan ah Israa'iil.